tababarkan loo soo xiray qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir ayaa soconayay muddo 3 bil ah. Mashruucan caafimaad ee loogu magac daray Marwo Caafimaad ayaa waxaa xiritaanka munaasabada maanta ka qayb galay mas'uuliyiinta agaasinka caafimaadka ee wasaaradda horumarinta adeegga bulshada, ururka haweenka qaranka, kan gobolka, mas'uuliyiinta hay'adaha gacanta ka geystay qabsoomidda tababarkaasi sida hay'adda WHO iyo WAHA, khubaro caafimaad iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa munaasabadaasi hadal ka jeediyey isku-duwaha caafimaadka gobolka Banaadir ee wasaaradda horumarinta adeegga bulshada Cusmaan Cumar Cabdi ayaa ka warbixiyey muddada uu tababarka socday iyo tirada kalkaaliyaasha caafimaadka tababarkaasi la siiyey. caafimaadka ka shaqeyn doona xarumaha caafimaadka gobolka Banaadir 9 degmo ka mid ah. degmooyinku inta waa ka badan yihiin inta kale insha Allah tababarka loo soo socdo tababar doona hadii Ilaahay yiraahdo. madaxa xafiiska hay'adda WHO qaybta Muqdisho Maxamed Cabdilaahi ayaa ballan qaaday in hay'adda WHO aysan ka daali doonin taageeridda shacbiga Soomaaliyeed. inay weli WHO diyaar u tahay inta kale oo dhiman oo la tababari doono inay qayb ka qaadato kaliya waxaan rabaa inaan farti ku godo maadaama ay nala joogaan madax ilaa heer qaran ah ujeedada laga leeyahay marwada caafimaadka inay tahay kaliya sidii loo xoojin lahaa goobta caafimaadka dadkeena kama faa'iideysan adeegga caafimaadka ee ka jira ama isbitaal ama MCH. wakiilka hay'adda WAHA Mr. Robert ayaa xusay inay aad ugu faraxsan yihiin ka qayb qaadashada mashruucan Marwo Caafimaad isla markaana shaqaalaha caafimaadka tababarka loo soo xiray ay guddoonsiinayaan gaadiidka gurmadka degdega ah si ay gurmad caafimaad ugu fidiyaan hooyada iyo dhallaanka. Canab Xasan Cilmi gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo iyana xafladaasi hadal kooban ka jeedisay ayaa sheegtay in tababarkan la siiyay shaqaalaha caafimaadka ay dabooli doonto baahida caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka. hooyo aan waxba haysan taksi qaadan karin dhakhtarta bareefada tagi karin inay meesheeda buushkeeda ku baabaday noqonaysa ama ku dhasho ama ha ku dhimato. laakiin maanta waxaa farxad ah inay hawl galeen ugu dambeyntii agaasimaha qalbeynta iyo daaweynta ee wasaaradda horumarinta adeegga bulshada Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed ayaa kula dardaarmay shaqaalaha tababarka loo soo xiray inay si daacad ah ugu adeegaan bulshada. waxaa kaloo jiri doona tababar 9 bilood soconaya oo marwada caafimaadka lagu tababari doono marwo kasta xarunta ama MCH ka shaqeynayso oo practical ah oo aanu ka wada hadalnay 9 degmo halkaas inta isku xiran waxaan rajaynaynaa inay janji ku samayso habkii caafimaadka aasaasiga ahaa ee goboladan la doortay muhiimadaas weyn ayayna ku leedahay marwada caafimaadka. Xasan Yuusuf Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.